بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد walaalayaal maanta waxaan rabaa inay xaggan kasoo jeediyo muuqaal yar oo aan ugu talagalay inaan ugu heeliyo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo inaan kaga nasahno aflagaadooyinka iyo karikateerada iyo wax walba oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xumaana oo kasoo yeedhay wadamada gaalada gaar ahaan wadankan Faransiiska. waxaan rabaa intaan muuqaalka gelin inaan xaggan ka sheego in Ilaah subxaanahu wa tacaala uu kafaalo qaaday una ballan qaaday nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam in aanay waxba ka dhibaynin dadka mustahzi'iinta ah ama ku jeejeesaya. Ilaah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin, sidoo kale wuxuu ku yidhi isagoo ka hadlaaya dadka nabiga caayaya ama nacab inna shaani'aka huwa al-abtar. aayadahaas waxay sheegayaan in nabi sallallahu alayhi wasallam Ilaah subxaanahu wa tacaala uu ka ilaalinayo dadka kuwa ku dhiiraday in ay xumaato ama u geystaan gafna inay meel xun ku dambay doonaan. intaa marka laga soo tago waxaa muhiim ah inaan annaga ka muslimiin ahaan ogaano in waajib ay nagu tahay nasaaran in aan difaacno nabiga u heelino nafsadeena iyo maalkeenaba ugu gargaarno qof walba ikraankiisa. Ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu Allah, haddii u gargaari weysaan ilaahay ayaa u gargaaraya. marka waxaana laga rabaa in aan nabiga sallallahu alayhi wasallam afkeena iyo adimadeenaba uga heelino si aan uga celino ama uga jeedino aflagaadooyinka iyo waxyaabaha ka imanaya cadowgiisa iyo cadowgeenaba. si aan u xaqiijino difaacaas aan difaacin nabigeena waxaa ka horeeya in aan horta marka hore jeclaano jacayl dhaba jeclaano weyneyno nafsadeena ku weyneyno dadka nagu dhow agtooda ku weyneyno. jacaylka nabigana sallallahu alayhi wasallam waa jacayl diinta kamida waaye, bal iimaanka kamida. nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidku leeyahay laa yu'minu axadukum, xadiid anas wuxuu ku leeyahay laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin. xadiid kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegayaa uu ku leeyahay halaathun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaan, waxaana kamid saddexdaa waxaa kamid ahaa an yakuuna allahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma. labada xadiis waxay sheegayaan in nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylkiisa uu diinta kamid yahay, iimaanka inuu kamid yahay. qofkana iimaankiisa una dhamaystirmayn haddii aan nabiga jacayl dhaba jeclayn. nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylkiisa marka aan soo qaadayno waxaa muhiim ah inaan isdareensiino in nabiga sallallahu alayhi wasallam ummadiisa uu aad u jeclaa, aad khayrka ula jeclaa. ilaah subxaanahu wa tacaala isagoo ka warramaya wuxuu leeyahay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim, oo mu'miniinta u naxariis badan u dhimrin badan. nabiga sallallahu alayhi wasallam marka maalinta qiyaamaha saa wada taqaanaan xadiidka caanka ah qiyaamaha dadkoo dhan markay ku adkaato qof waliba nafsi nafsi marka uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qofka keliya oranaya ummatii ummatii. nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiid waxaa kaga sugnaaday sidoo kale sheegayana dareensinaya sida ummadiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrka ula jeclaa. xadiidkan uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku leeyahay likulli nabiyyin dacwatun mustajaabatun yadcuu biha wa uriidu an akhtabi'a dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaamah, taasoo kutusaysa in nabiyadii xadiidkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam ku sheegaya in nabiyadii horeba dacwooyinkooda mustajaabka aha ay ku duceysan, laakiin isaga aanu ku duceysan ummadiisa u dibdhigaysay uga faa'iidaystaan inta joogta iyo inta ka maqan, intii zamankiisii joogtay iyo intii kalaba. bal iska badaaya nabigu wuxuu u shafaaco qaadi doonaa maalinta qiyaamaha ahlulkabaa'irkii dadka dembiyada iyo macaasida lahaa. taas oo aan rabo inaan tanbiih yar ama baraarujin yar ka bixiyo. dadka qaar baa markii dadka qaar ay u qiiroodeen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo difaaciisa, dadka qaar niyad jebiye oo odhanaya adiga macsiyad ku dhex jirtaa, adigoo dembi noocaas qaba sidee nabiga u difaacaysaa? haddii aad run ay kaa tahay maxabada nabiga waxay ahayd inaad dembiyadan ka dhex baxdo. waa sax
in dembiyada iyo maxaa la rahdaa dadka laga waaniyo, laakiin haddana ma aha in la isku xiro maxabada nebiga iyo qiirada. qofka muslimka ah si kastuu dembi u galo, si kaste waxaa la rabaa nebigiisa inuu jecel yahay. waana waxyaabaha nafsadiisa iyo beri uu macnaha rajada iyo shafaacada nebiga sal ly slam inuu wax ka helo uu ku rajaynayo. marka inaan idhaahno qofka dembiilaha ah ama qofka dembiyada macaasida dad kale nebiga ma jecla, waa wax sunnada nebiga sal ly slam iyo waaqaca uu beeninayo. sababtoo axaadiis waxaa jirta nabiga sal ly slam sidii ninkii khamriga aadka u cabi jiray oo uu leeyahay waa nin nebiga ilaahayba jecel. markii nin asxaabta kamida ama saxaabada kamida uu ku yiri ta lacnadaydi badana inta lagu keenayo khamri cabitaankaagu badana. sidaas la-eg waxaana laga rabaa nebiga jacaylkiisa inaan ku darno weyneyn iyo inaan nebiga maqaamkiisa ilaalino weyneyno, sida ilaah subxaanahu watacaalaba maqaamkiisa uu u ilaaliyey, saxaabada ugu waaniyey inay ilaaliyaan. waxaa kutusaya nebiga sal ly slam inuu ilaah subxana watacaala maqaamkiisa aad ugu ilaaliyey markuu ilaah subxana watacaala aayadan ku leeyahay in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. ilahay aayadda wuxuu ku sheegayaa in asaga iyo malaa'igtiisuba ay nebiga ku saliyeen. mu'miniintana la rabo weyneynta iyo maqaamku nebiga ilaah subxana watacaala gaarsiiye inay kaga daydaan ina ku saliyaan. sidoo kale ilaah subxana watacaala aayadan wuxuu ku sheegayaa maxaa la dhahaa suurat alxujuraat yaa ayuha aladiina aamanuu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إن النبي صلى الله عليه وسلم صحابه إن عتكر وقال وحكروا وكشيء آيات كالله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن النبي مركب ويا صحابة سيدة ضدك عادية إن سوية إن النبي صلى الله عليه وسلم مقام كيس الله الله هرمري يا رسول الله مقام نصي. marka dhammaan aayadahaas iyo axaadiidu waxay sheegayaan in nebiga sal ly slam maqaamkiisana aan ilaalino. maqaamkiisana waxaan ku ilaali karnaa in aan barano siiradiisa, qaabku u noolaa nebiga sal ly slam, sunnadiisa aan dabaqno. marka aan intaa uga soo tago xuquuqda uu nebiga sal ly slam nagu leeyahay, waxaan rabaa inaan xaggan wax yar ka iraado farans ama reer galbeedka si guud thaqaafadooda iyo waxa ay ka aaminsan yihiin maxaa la rahdaa xorriyatu qowlka ay inoo sheegaan. waxaan rabaa xagga inaan ka sheego in thaqaafada reer galbeedka si guud iyo mabaadi'da ay ku dhisan tahayba siiba gaar ahaan hadda tanna saameynaysa xorriyatu qowlka loo yaqaano ama freedom of speech. waa wax macnaha muslimiinta un marka ay imaato lala soo baxo sidii la rabana loo istiqlaaliyo ama loo isticmaalo. marka ay iyaga ku wajahan tahayna xorriyaddii xuduud loo yeelo. marka muslimiinta iyo muqadasaadkooda imalasana la yiraahdo waa qiyamka ay faransa ku taagan tahay qiimad asaasiyo kamid ah. oo xagga ka garanaysaa si guud reer galbeedku in qiyamtooda ay sheegayaan in ay tahay un qiyam dhinacooda iyo mar walba hawadooda waxa raacsan un loo fuliyo. france waxaa sharciyadeeda kamid ah sharci sheegaya in aan maxaa la rahdaa lagu ihaanay karin calankooda meel public ah, qaraamana la saarayo qofka. xagga waxaa kaga cadaanaysa in ay taqdiisinayaan calankooda matala france keliya wadankaa matala, halka ay ka rabaan muslimiinta oo intaa la eg in ay hortooda ku aflagaadeeyaan nebigooda sallallahu alayhi wasalam, haddana ay aamusaan amaba u qoslaan iyagoo ku andacoonaya inay jirto freedom of speech. xorriyatul qowl ma jiri karto, mana lagu wada noolaan karo wadan haddii aan la is ixtiraamayn, haddii aynan ixtiraamayn gaaladu maxaa la rahdaa muqadasaadka muslimiinta. taasna waxay ku iman kartaa in muslimiinta oo dhan u istaagaan, u nusrayaan nebiga sal ly salam, muqaataceeyaan oo ay jaraan badeecadaha kaga yimaada france. badeecad keliya maahane khidmad kasta oo ay france ku tiirsan tahay, hadday noqoto dalxiis, hadday noqoto masdar kasta, si kastoo daqdi ay ugu saari karaan si ay ugu khasbaan france inay ixtiraamto nebiga, sharciyo kasoo saarta ilaalinaya in aanay soo noqnoqon waxyaabaha noocaas oo kale ah, muslimiinta ku jirtaan xorriyaadkooda ee u ilaaliso. france waxa ay u sheegaysaa muslimiinta inay xorriyad ilaalinayso iyadoo aan u ogolayn in muslimiinta ku noolaa ay siday rabaan u noolaadaan.
ay u xadidayso gabdhihii muslimaadka ahay France ku noolaa waxa ay xidhanayaan ay u xadideen, haddana saasay tahay waxaa lagu leeyahay waxaan ku ogolnahay freedom. marka waxaan leenahay waa munaafaqad ay wadaan gaalada. qof walbo muslimana waxaa rabaa inuu aada u fahmo iskana ilaaliyo in uu noqdo qof gaalada u shaqeeya ama muslimnimadiisii ama nabigiisii sal ly slam hortiisa inta lagu caayo haddana aanan far dhaqaajin. intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan. intii aan muuqaalkan lamida isu arki doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.